magaalada Johannesburg xaafadda Soomaalida ee ka degan tahay Mayfair waxaa lagu qabtay koob loogu magac daray Champions of Mayfair Academy oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta iskuulka Mayfair Academy. ciyaarta inta aysan bilaabanin ayaa wacyigelin loo sameeyay dhammaan ciyaartoydii ka soo qayb gashay iyo dadkii daawanayay oo madasha xaadirka ahaa. ugu horreyn waxaa goobta furay oo ka hadlay Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan oo ah maamulaha iskuulka Mayfair Academy wuxuuna sharaxayaa waxyaabaha looga baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo koraysa. The exercise we get fit, then خلاص that is all. For us to make our salah, our tahajjud, Quran, all this. And all the youngsters, I'm just also advising you finish madrasa, you finish the Quran. And inshallah, leave all this stuff. intaasi kadib ayaa waxaa loo sameeyay dhalinyarada qada lagu maamuusayay oo loogu talagalay inay noqdaan kuwa weel wax ku wada cunay isla markaasna walaalo ah inta ay ciyaarta socotana aysan sameynin waxyaabo ficil keeni kara dagaal maadaama koobkan uu yahay mid lagu soo xuli doono ciyaartoy matasha iskuulka Mayfair Academy marka ay la ciyaarayaan iskuulada kale ee magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. intaasi kadib ayaa garoonka waxaa soo galay saddexdii kooxood ee lagu talagalay inay ciyaaraan kubadda ee koobka loo dhigay waxaana lagu maamuusay sacab iyo soo dhaweyn kooxda championka ahayd ee hore u qaaday koobka isla markaasna la ciyaaraysa kooxaha kale. waa kuwan markii ay soo galayeen garoonka kubadda lagu ciyaarayay. markii ay soo galeen garoonka ayaan waxaan weydiinay waxyaabaha looga gol leeyahay koobkan ay qabteen Mayfair Academy waxaana sharaxaya maamulaha iskuulka Mayfair Academy Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan. bismillah koobkan waa Mayfair Academy Cup waxaan ugu magacdarnay waxaana ma aragtay lagu maamuusa ama ma aragtay lagu soo dhaweynaya insha Allah sanadkan soo socdo waan ma aragtay iskuulka u sameyn rabnaa koox oo caalami oo ma aragtay kala qayb gasho iskuulaha ma aragtay ciyaaraha marka saadaradeed yaan insha Allah taala aan u rabnaa ardayda ragga ma aragtay magaalada dhamaan inaan ciyaarahooda wada fiirfiirino intii fiicanna insha Allah aan ka qaadano say sanadkan ma aragtay dambe noogu ciyaaraan ay uga qayb galaan ma aragtay tartamada iskuulada insha Allah taala muhiimada waa inta kooxaha ka qayb galayaan waa kooxdeenan oo Mayfair Academy team 7 stars oo ayagana team iyo Ocean Stars oo team saddex team ka qayb galaysa ciyaartana marka hore ma aragtay sare reeb ay noqon doontaa laba waa final ku soo baxaysa finalkana ma aragtay kaaba u yaala insha Allah taala lagu abaal marin doono. intaasi kadib ayaa waxa bilaabatay ciyaartii loo madalsanaa waxaana wada ciyaaray kooxda Mayfair Academy iyo kooxda 7 Stars oo lagu furay ciyaaraha waxaana guul gaaray kooxda Mayfair Academy. mar labaad ay is arkeen koox walba waxa ay ciyaartay 3 kulan waxaana halkaasi ka haray mid ka mid ah kooxihii ka qayb galayay waxaana finalka isugu soo baxay 7 Star iyo Mayfair Academy. ciyaartoyda ayaa soo bandhigay ciyaar aad wanaagsan oo ay jecleysteen dadkii ka soo qayb galay daawashada ciyaarta waxaana lagu xuleeyay ciyaaryahano xirfad leh oo matali doona iskuulka Mayfair Academy. markii ciyaarta soo idlaatay oo ay guuleysteen kooxda championka hore u ahayd ayaa mar labaad koobka qaaday oo ku guuleysatay waxaana la guddoonsiiyay koobkii loo madalsanaa in la qaato waxaana ka hadlaya kabtanka kooxda Suleymaan oo sharaxaya sida ay ku gaareen natiijadan aadka u adag isla markaasna ay kaga guuleysteen maadaama ay ciyaareen ciyaaro aad u xiiso badnaa oo kululaa. waxaan ciyaarnay ciyaar aad u xiiso badan oo ay soo abaabushay Mayfair Academy taas oo ka koobnayd 3 team waxaan noqonay kooxdii ku guuleysatay teamkii ugu sareeyay ugu dhibcaha sareeyay 3 team waxay soo mareen Israareeb taas 3 team wada ciyaarayeen kubadda ayaa koobkan wuxuu ka mid ahaa ciyaarto lagu soo xuli doono in ay ka qayb gali doonaan tartanka madaarista magaalada Johannesburg waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan abaabulayaashii tartankan waxaan aad ugu sii mahadcelinayaa marka labaad
kooxdeedii Mayfair Academy oo iyagu mataqaanaa dadaal muujiyay waxaana mataqaanaa aad mataqaanaa macallinkayga macallin Maxamed oo uu dhiirigeliyay ardayda aad baan mataqaanaa u salaamaya. waxaa sidoo kale ka hadlaya tababaraha kooxda kale ee Seven Stars isla markaasna ahaa kooxdii kaalinta labaad gashay ee laga guuleystay wuxuuna sharaxayaa sida laga guuleystay koobkii maanta la wada ciyaaray. السلام عليكم aad u mahadsantihiin daawadayaasha meel walba aad joogtaan kulankan wuxuu ahaa kulan ku saabsan ciyaartoyda Mayfair Academy koobkan waxaa la yiraahdaa Mayfair Academy Champions waxaa qaaday Mayfair Academy qaaday anaga Seven Stars waxaan imaanay final kan imaanay ciyaar aad u wanaagsan meesha ka dhacday ma sha Allah alxamdulillah wax problem ma imaanin waana laga guuleystay dhammaan raggu waa laga guuleystay laba dhaga haday isku dhacaan mid un buu jabaa waana laga guuleystay aadan ugu mahad celinaynaa next round aad diyaar u nahay insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gabagabada waxa ay nala hadlay mid ka mid ah guddiga odayaasha soo qaban qaabiyay koobkani oo kana mid ahaa daawadayaasha isla markaasna xulayay ciyaartoyda matali doonta Mayfair Academy inkastoo kooxda koobka qaaday oo qura aysan matali doonin iskuulka ayaa ciyaartoydii kale ee laga badi waxa laga soo xulan doonaa inkastoo labada koox kale laga guuleystay haddana waxaa jira ciyaartoy laga soo xulanayo sida uu sheegay maamulaha Mayfair Academy ee kabtanka kooxda waxaana la filayaa inay ka soo baxaan ciyaartoy matali karta Mayfair Academy marka loo baahdo ciyaartoy la ciyaara iskuulada kale. Assalamu alaykum wa salaamay dhamaan daawadayaasha koobkii galabtaan qabanay on keen kormeer annagoo odayaasha magaalada Mayfair oo koobka oo qabatay Mayfair Academy wuxuu ku soo gabagabay gool alxamdulillah ilaahay waa mahad leh koobkana waxaa qaatay Mayfair Academy kooxaashu waxay ka mahayeen 3 kooxood waxaa guusha la wareegtay Mayfair Academy alxamdulillah ciyaarta si wanaagsan oo nidaam wanaagsan ku dhamaatay dhalinyarada meesha imaatay iyo ragga meesha ciyaarayay waxay muujiyeen ciyaar aad iyo aad u wanaagsan annagana aad baan maartay ugu riyaaqnay way mahadsan yihiin waxaana maartay u mahad celinaynaa raggii arrintan maartay dadaal dheer siiyay oo qarash ku bixiyay oo dhalinyaro isku keenay oo maartay waxaana maartay ku boorinaya inay arrintan sii wadaan oo ku dadaalaan inay maartay ka sii dheereeyaan oo kooxyo badan abuuraan guddiga aad ka mid ahayd intaan ciyaarta la ciyaarin waxaa jirtay qado oo loogu talagalay ciyaartoyda ma kooxaha laga soo arooriyay lacagtaas mise waxa sameeyay guddiga waa su'aal wanaagsan lacagtaas waxaa bixiyay maamulka maartay Mayfair Academy Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan uu ku mahadsan yahay qado wanaagsan ayuu noo sameeyay dad badan oo maartay marti aan naga qayb galay oo dadka maartay wadanka degan qaasatan dadka muslimiinta Hindida uu ku mahadsan yahay qado aad iyo aad u sharaf leh beehad alxamdulillah waan ugu mahad celinaynaa arrintan maartay dadaalku waa inuu sii la waraabo uu ku mahadsan arrintaas Idrus Abdi Hassan Johannesburg Koonfur Afrika